waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta garoonka magaalada Garowe ku soo dhaweyno Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake Raiisal Wasaarihii hore ee Soomaaliye ahna senator dowladda federaalka aad baan ugu faraxsanahay maanta na soo booqdo Puntland isaga iyo waftiga uu hogaaminayo runtii farxad bay noo tahay inaanu soo dhaweyno waxa weeye waa tiirarka ugu waaweyn ee Puntland ku tirsan tahay sidoo kale waa tiir muhiim noogu oo taabageliyay oo door weyn ku lahaa dhisidii Jubbaland dowladda dhexe ee Soomaaliyana door fiican buu ka soo qaatay aad baan ugu faraxsanahay maanta inuu Garowe nagu soo booqdo Cumar Cabdirashiid magaaladaadii deegaankaagii dhulkaagii ku soo dhawow aad baan ugu faraxsanahay anagoo golihii qayb ka mid ah golihii baarlamaanka iyo madax kale oo ka mid ah dowladda Puntland runtii waxaa rabaa marka hore inaan u mahadceliyo dhammaan mas'uuliyiinta xildhibaanada dowlad goboleedka Puntland ee halkan ugu soo dhaweeyay iyo shacabka iyo dadweynaha deegaankan uga mahadcelinaya sidii diirnayd noo soo dhaweeyeen oo ku faraxsanahay inaan muddo kadib aan ku soo noqdo insha Allah dhulka Puntland aan deegaanka laga soo doortay anoo senator laba arrimood ayaa hadda u muhiimsanaa runtii imaatinkeena halkan arrin waxay ahayd waqti waxa la galay kala guura 2020 dalku wuxuu galayaa doorasho haddii la yiraahdo hadda ayaa sharciyadii doorashada ay yaalaan baarlamaanka Soomaaliyeed aqalka sare uma soo gudbin marka runtii inaan halkan madaxweynaha xukuumadda baarlamaanka iyo mas'uuliyiinta Puntland aan kala tashano habka ugu fiican ee hadda doorashada sharciga hor yaala muxuu ahaa baarlamaanka Soomaaliyeed sidii yani fakar ahaan loogu darsan lahaa maaragtay sida ay ugu habboon ee doorashada loo qaban karo kadibna runtii inaan deegaanka ka wareysano waxa la wixii kaleeto dowladda dhexe يعني uga aadin ama haday tahay siyaasad iyo amni